xilli dowladda Kenya ay wado qorshe dib loogu celinayo qaxoontiga Soomaalida ee dalkani Kenya ayaa xildhibaan laga soo doortay deegaanka Faaf ee gobolka Waqooyi Bari Ilyas Barashil waxa uu sheegay in qaxoontigan ay hilmaameen madaxda Soomaaliya isla markaa aysan jirin cid ka mid ah madaxda oo xitaa hal mar soo booqatay xeryaha qaxoontiga ay ku jiraan dad ku dhow nus milyuun Kenya ay xaq u leedahay inay eegto danteeda waxaan u danaynayno waa Soomaalida qaxootiga ku nool weligay ma arag madaxweyne Soomaali Prime Minister Somali ama xildhibaan Soomaali oo xarooyin qaxootiga tagay silci dadkooda ku nool yihiin wali ma arag anaka dusha naga saaran yihiin anaka xuquuqdooda ilaalin anaka waxooda ilaalin marka waxaan leenahay dhageyso aan ku sheegay waxaan leenahay ajendeedooda waa inay miiska la soo saara markaan leeyahay waa la celini qof baa imaan wuxuu dhahay lama celinay haya lama celinay dib kala jiray xalkeen way marti Kenya tigana waxaan rabnaa xal baan ka rabnaa Kenya waxaan rabnaa inaan dhahno dadkan haddii raban tirada noo kordhiyaan dad Soomaali baan nahay aan lagu soo biirmo oo ma artay alla siiyo muxuu ahaa sharci Ilyas Barashil oo wareysi gaarsiiyay TV-gon Cable TV ayaa sheegay in qorshaha wadda Kenya ay dib ugu celinayso qaxoontiga uu yahay mid loogu danaynayo qaxoontiga waxaanu intaas ku dareynay jiraan dad ku dhashay xeryaha qaxoontiga oo imika daadooda ay ku dhowdahay 30 jir loona baahan inaysan qaxoontiga si ahaan oo ay noqdaan Kenyan ama Soomaali waxay joogeen 22 sano qof cunugii ku dhashay halkaas maanta waa nin weyn 22 jir way haduu nin rag yahay xasbu leeyahay carruur buu leeyahay gabar haday tahayna asaas ay leeyahay anaga waxaan u danaynaynaa waa dadka Soomaalida meesha degan waa la hilmaamay xabis weyn bay ku jiraan maanta Kenyan ma aha Soomaalina ma aha hadduu qofka buko uu rabo inuu daawo soo raadsado gaars Nairobi waa in waraaq la siiyo oo ma artay dhibaatooyin fara badan uu la kulmo sida awadeed waxaan leenahay caalamiga iyo Kenya iyo Soomaaliya maxay u hilmaameen dadkaas waa inay dadkaas meeshooda haday nabad tahay loo habeeyo ay ku noqdaan Soomaali waxay tiri hantiyay macaan waa midan hooy laga oranay haddii meesha la arko inay ku noqon karin ay Soomaaliya tahay 22 sano joogeen waa inay Kenyaati noqdaan haday Kenyaati ay diidaan waa in caalamiga loo qaybiyo midda kalena laanta qaxootiga qaabilsan UNHCR shaqaalahooda biyahooda iyo fruitkooda waxa lagu keenaa diyaarad guryo qurux badan bay ku jiraan oo mukayf leh maba doonayaan qaxootiga in laga qaado maxaa yeelay waa arrimo ay ma artay ku stareexayeen ay ku raaxaysanayeen ay shaqo kaga dhiganayaan Kenya ayaa sheegtay in ay albaabada u laabayso xiriirka qaxoontiga ee Dadaab oo ay ku jiraan Soomaali aad u badan oo qaxoonti ah Abdi Ibrahim Al Dere Home Cable TV Nairobi